qisadani waa dhab waxaana inala wadaagay mid ka mid ah daawadayaasheena oo magaciisa ka gaabsaday inaynu u adeegsano meediyaha ka oo ku sugan dalka Jarmalka wuxuu yiri ugu horeyn waan idin salaamayaa bahda aayaha nolosha TV iyo asxaabta ku xiran arintani waa mid aan ka jiifsan waayay oo aan go'aansaday buu yiri ugu dambeyn inaan idinla wadaago si aad iiga tala siisaan waxaan ahay dibana la qiyaamay taan doortay baa dhabarka iga toogatay oo iga dhaqaaqday xaalad ay adag tahay in la isku cidleeyo haddaba aan idin daro qisadayda ee wuxuu jiri anigoo tahriib ah oo ku sugan xabsi ku yaala dalka Liibiya ayaa waxaynu isbaranay gabar iyana kaligeed inagala xirnayd wax dumar xabsiga waxaynu ahayn 5 wiil laakiin goor aynu 5 bil xirnayn ayaa iyada inaloo keenay banaanka ayaa la ii soo saari jiray si aan ugu turjumo maadaama ayan luqadda carabiga ah ee dalkaasi looga hadlo si fiican u aqoon taana fursad aynu isku xog wareysano oo aynu si fiican isugu dhaxgalno ayay inoo noqotay aniga iyo gabadhii waxay ii sheegtay inay dhowr mar xabsi soo gashay la jir dilay niyad jab badan ayaana runtii ka muuqday laakiin ma jirin waxaan u qaban karo oo anigii ayaaba dhibane kala ahaa walow aanan jeclaysan in ay gabar Soomaaliyeed ay xabsigaasi inala soo gasho daruufaha ka jiray aawadi nasiib wanaag markaynu dhowr bilood ku xireen xabsiga ayay bilaabeen Liibiyaankii ina haystay inay ina weydiistaan buu yiri $1 qofkii si ay inoo sii daayaan taana fursad ayaan u arkaynay waxaynu bilownay inaanu dalbano lacagihii si aan mar banaanka cagta u dhigno una sii wadano safarkeena banaanka ayaa maalin la ii soo saaray sidii caadiga ahayd si aan ugu turjumo gabadhii hase yeeshee waxaan u tagay iyadoo aad u murugaysan waxayna ii sheegtay inay ka soo jeedo reer sabool ah oo aysan awoodin inay bixiso lacagta $1,000 ah aysan garanayn meel ay ka keento ilin ayaana indhaheedii soo dhaaftay iyadoo go'aanaysa ciqaabta daran ee xabsiga taalay iyo wiilashii ay wehelka ka dhiganaysay oo isku diyaarinaya inay ka baxaan xabsiga xitaa luqadda ma taqaano aad ayaan runtii uga xumaaday xaaladda ay gabadhaasi ku sugnayd waxaana gartay inaysan joogin meel lagu cidleeyo hase ahaatee waxaan isku dayay inaan dajiyo waxaana u sheegay inaan dib ugu celin doono xaaladeeda dhalinyarada kale bal hadaynu caawin karno gabadhan dhiban nasiib daro wiilashii kale ayaa ii sheegay in waalidkood ku daalay dhowr xabsi horena madax furasho looga soo daayay aysan waxba ku caawin karin gabadha waxay bilaabeen inay ka baxaan xabsiga laakiin anigu waxaan qaatay go'aan ah in aan meel cidla ah uga tagin gabadhan waxaana dib u wacay buu yiri qoyskeygii anigoo ka dalbaday lacag aan u qorsheeyay inaan doon ku raaco inay ii soo diraan si aan ugu sii daayo gabadhan mana jirin ujeedda aan ka lahaa oo aan ahayn caawi walaasha waxaan ku guulaysanay inaan xabsiga ka soo baxno oo aan sii wadano safarkeeni hablo ay isyaqaaneen ayay aaday anna magaalada ayaan galay si aan u shaqaysto lacagtii aan doonta ku raaci lahaa waxaynu ka wada hadli jirnay taleefanka gacanta muddo kadib ayaanu bilownay inaynu sheekadeeni u wacino dhanka haasaawaha dad aad isugu soo dhawaaday ayaanu noqonay jacayl gaaray guur ayaa ina dhexmaray hase ahaatee way adkayd inaynu Liibiya isku guursano taa bedelkeedana waxaynu ku ballanay inaynu Talyaaniga markaynu tagno isguursan doono xilliga aad ayaa la isku xiriyay dadka soo galootiga ahna guryaha ayaa loogu dhacay Liibiya gabadha ma haysan lacag ay doon ku raacdo anna waan shaqaystay intaan banaanka joogay laakiin labadeena mid bay qaaday lacagtaan haystay waxaase ila qurux badnaatay buu yiri inaan iyada iska hormariyo anna aan ka daba tago sida ayaana sameeyay lacagtii yareed iyada ayaan doon ku saaray waxay tagtay dalka Talyaaniga nasiib wanaag farihii way ka badbaaday waxayna u sii gudubtay dalka Jarmalka bilihii ugu horeeyay aad ayaynu u wada xiriiri jirnay kadib waxay bilowday inay bedelato wax kasta oo aynu ka wada xiriiri jirnay waxaan waayay hadalkeedii asxaab ay isla safreen ayaa ii sheegay inay dhalinyaro kale la socoto aniga halkii ay iiga soo tagtay ayaan joogay gadaasheed dhowr mar ayaan xabsi galay oo la xiray kana soo baxsaday mana isoo raadin buu yiri ugu dambeyn waxa ii suurta gashay inaan tago dalka Talyaaniga faro ayaa la iga qaaday waxaana mugdi galay buu yiri mustaqbalkeygii qaaradda Yurub waxaase iiga darantii aan fiirsanayay oo nolosha ugu cidlaysay waxaan kali ku noqday jacayl aan cidina ii ogeyn habeen iyo maalin waxaan isweydiiyaa inaan kulmi doono iyo in kale qalbigaygu wuxuu aad ula qushuucay jacayl xad dhaaf ah oo ay igu beertay indhahayguna waxay aad ula yaabanaayeen muuqaalkeeda oo u sawiran marna naftayda waan ka dhaadhicin waayay inay gabadhii aan intaa isla soo marnay halka ay dhigi doonto
weligay ma culaadin hadal xunna kumaan oran mana jirto eed aan ka galay oo ay iga aarsanayso aanan ahayn buu yiri jacayl aan u qaaday oo iyadu ay igu beertay muddo kadib waxaan tagay dalka Jarmalka oo ahayd halkii la igu sheegay inay ku nooshahay asxaab isku keen yaqaanay oo ku nool dalka Jarmalka ayaana igu raadiyay waxaana la kulmay ugu dambeyn gabadhii aan intaasi u maray aawadeed oo isbedeshay muuqaal ahaan iyo dabeecad ahaan waxay ku sigatay inay tiraahdo kuma tahay iyadoo qancinaysa wiil markaasi la joogay oo dhaqan Soomaali aanu ka muuqan markaad eegto madaxiisa iyo dharku xirnaa hadaba iyadoo laba wajiileynaysa ayay ii sheegtay in wiilkaasi xiriir kala dhaxeeyo dhawaan ay iskuursan doonaan halkii ayaana uga soo dhaqaaqay anigoon jawaabsiin wuxuu igu noqday hadalkeedii falaar lagu danqiyay halkuu dhaawacu iiga yaalay waxaana hubaa in gabadhaasi uu ii galay dareen jacayl oo iga go'ila وإسك حال أدون إيه هولا دمر أصحاب تايها نولش TV waxaan idinkaga fadhiyaa taladiina talo waa tii Rabbi